mudana gadoomiye cadaalada aniga walaalkaygu waay marxuunka koreeye marxuunka horeey cadaalada waay oo aniga walaalkayga aan u helan ninkan loo meelaa jawaabtu waa maya marka aniga nin ma aragti oon aarsayaan ahay ereyadan kuwa aan wax badan doorin ayaad ka maqasheen garmaqalkii heerka koowaad maantase waxa uu ka furan yahay galkan maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida waa kan jenaraal liibaan cali yarow gudoomiyaha maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida oo garbaha garnaqsigan weydiinayo sababaha rafcaanka ay u soo qaateen maadaama maxkamadda darajada koowaad fakta hore ay ka soo saartay xukun abiilna ay laga soo qaatay abiilkana ay soo qaateen dadka xukunka ku dhacay marka waxaan siinaynaa abukaatiyaashii abiilka soo qaatay asbaabtay u soo qaateen inay noo caddeeyaan qareennada ayaa marka hore ku dooday in xaq laga rabay marxuum xuseen xasan moolgalo uu fuliyey eedeysanaha koowaad daajir cali cismaan oo isna waayay cadaalad u helidda walaalkiis daahir cali cismaan oo uu hore u dila marxuumka loo haysta dacwadan labada eedeysane sababta rafcaanka uu soo qaatana kow waxaa ka ah dilkaasi weli ninka marxuumka dhintay oo ayaga aabahood ah oo weli damka ah mana cafin magna kama qaadan qisaastayna kama usan cafin aanadaas taagneed oo aana qabiil ayaa dilka keentay marka koowaad saasuu eedeysanaha koowaad uu dilka uu qiraal ugu ahaa dil iska yimid oo isaga bareera ma ahayn waa dil daba joogay walaalkiisoo la dilay tan labaad eedeysanaha labaad goobta dilku ka dhaca ma joogin oo goobjoogaba kama ahayn gurigiisuu joogay xilliguu dilka dhacayay waana hubaysnaa xabaduhu markay dhacahayeen xafiiska xeer ilaalinta ayaa diidan sheegashada eedeysanaha koowaad waxuuna maxkamadda hor keenay heshiis qoran iyo muuqaal oo kiiskan hore loogu soo xiray kiisku waa kiiskii la xiriiray ay dhahayeen kiiskii marxuumka la xiriiray weli daba soco macnaha marka kiiskan waxay dhaheen heshiis lagama gaarin saasaan u dilin la'agligeeda taas ayaa xafiiska durayaa heshiiskii ka sukow dadkii uu duceysanaayo oo lagu kala baxay iyo meeshii ducada lagu kala qaatay waay muuqaalkaas oo caddeena nabadoonnadii ayaana macnaha meesha ka duceynaya nabadoonnadii ay labada dhinac ka dhasheen ayaa meesha ka duceynayo faataxda ka aqrinayo daadir cali cismaan iyo cabdulaahi cali cismaan oo booliiska iyo nabad sugidda ka kala tirsan ayaa ku wada eedeysan inay wada dileen 30kii Maajo ee sanadkan marxuum xuseen xasan moolgale oo ah gudoomiyihii degmada Mareeri dhinacyada dacwadda ayaa maxkamadda keensada maragyo kala taabacsan aniga moota sheeko ma iska shaqeystaa anigoo Mareeri meel dhahayo oo ka imaaday oo yarkeena busteejadan baabuurta xamar oo keenay meesha keenay mootada magaxoo cilid ay iga jirtay waa baxay wiilka busteejada keenay waa soo laabtay mee garaashka ana u socdo dadkaana arkay busteejada oo Mareeri oo ka shaqeysan oo meeha taagan arkay waxay dhaheen soo bax xaafadana geeyeen busteejada labadooda waxay dhaheen soo bax xaafadana geey xaafadana waa geey jiraan hadii xaafadii geedaan waa iska geeyaa hadii wax hayaan lacag hayaan mar waxay sii jireen marna ma sii jirin ba iska soo baxay baan mugaas ay garaashkana gaarada mootada xoo ciltii jirtaa ma soo bixin hadda buu imay xaafada rabnaa xaafada mutaatna mootada waa soo kala firay busteejada meeshay ka soo koreen waa soo baxani leenko xaafada oo ka digi jiri anoo ka digir waa mootooyina meesha aaleen oo bajaaj waxay dheen inta ka digin hor u socodeen gidigaas kala ka soo galeena xaafadeen waa soo toosi mootada soo gidigi leenkiya ka digin leenkan oo ka digiro oo xaafadood u laabaraw mugaas ay dheen horno wada dheen gudoomiyaha soo fiiriyeenay gudoomiyaha xaafadiisa maani hadda koora biyo oo soo baxay fasaadka buur la dhigay geed camba hoostiisa meesha ku gudoomiyaha iyo mid kale intan meesha jiifeen mootada waa soo wadi raad moota arko oo meesha ka soo baxay godka oo gudoomiyaha ku jira mugaay gashay moota ku jirta oo maleeyahay raadkan inta daba kacay isdaan raadka mootada yaa daba kacay raadka mootada marka daba kacay moota meesha ka soo baxday ahayd mootada meesha ka soo baxday waa ku degtay dadkaan way degteen labadooda way iga degteen aniga mootada taakay mootada taaka ma dhulka bajaq ahay taakada dhulka iga gashay
jaqaf walaaya meelaha ka fiiri jaqaf walaa u soo qabtay taakadaa u dhigay taakada markuu dhigay dadkaa way degteen gadoomiyey salaameen anagana mootadii ka soo degay gadoomiyaha salaame iyo midka kaleentaa salaame markaasaa dhahay gadoomiye ani waa sii baxay markuu midoo dhahay daawad isticmaashaa haa daawada isticmaalaha gadoomiye ani waa sii baxayaa dhahay hayboy dhahay waa soo baxay mootadii aa koray furay iyaa jeebka soo baxsaday furay iyaa ku suri marka furaa ku suri maayo oo kici maagane waxaa arkay odaygii korkiis dhan wada dib lee ka kacay xabado saabarkuu fiiri ilaa amarkii saawa u soo noqo waa banaxay baani dhanba saantii dhan saawa isu soo celi waay waa fiiri dadkii dadkaan oo labada oo qoray oday ku hayaan ark aniga waana wax ma u qaban karaan mootadii hasa u korfuuli ninkii kan kaleento meeha jiif oo waxaa arkay oo daldaloomaayo oo ugi isku tuuraay moota yar ku keenay waa ka soo degeen cabdullahi cali usmaan oo kow ka soo degay ani iyo gadoomiye xuseen aniga waxaa ka jiifay qaybta bari usana qaybta oraxsano mugta iga soo xigay taleefon u fiirsahay oo wacdi u fiirsahay ana waa mugta waa gandhawa waa hurda waa jiifay mootada laga soo degay cabdullahi cali usmaan dhinaciisa u fadhiistay daadir cali usmaan madaxiisa u istaagay mandhow maaragtay beerka maxaa kuu dhacaya wey beerka legayaa weli daabada kuu keenay maxaa u isticmaali waysa weli adeer waa isticmaalyaa weli adeer waa isticmaala marka dhahayey kan cabdullaahi cali usmaan xabada maaragtay fadhiga uu ka bilaabay daadirna jooga uu ka bilaabay kadib aniga xabadiyaa maaragtay isku celi waayey waa ka booday hubigaa ka galay hubigii dhinac bari baa bixinay biyihii ay soo raacsiiyey adiga 25 mitir oo kale hoos u socday kadib banaanka uu soo baxay banaanka uu soo baxay oo kan waa kala caradeen inta weys qaadki u darbahaayo waxaa maqlay dhabaq rasaas bis waa soo fariistay waxaa isleeyahay qorayaan oo BKM ka ah yaamehan ku baroobayay keesti waxba kama dhigihini qoriyihii dhabaaqooda zaid igu sii noqday webiga ka xagga gabar xoolaaley ee xoolala dhaqata ah webiga ka xagga ka soo qeylisay nima webiga soo galay iyada markii waxay u maleeysay webi lagu dhacay webiga lagu soo dhacay tiri waa istaagay markay gabadhi kheyladeeda aan maqlay webiga ka xaggana ee jirto waa istaagay macawiisa wata macawiistii ka dul baxay waxa isdahay daraada cunug meeshan ku dhintay adun cunug labaad ma ku soo dhacay waa istaagay markaa macawiistii ka dul baxay webiga geeskiisa istaagay marka biyihii rasaasina ee dhacayso biyaha markaas aan dhahay xagga dhexda camal wax ka soo foocay in la yiraahdo awkur maxamed cali aka soo foocay bis markuu asay soo foocay rasaasta way joogsatay markaas aan dhahay adeer awkuro adeer miyaha aan dhahay markaas uu yiri ha yiri marka asoo waxismaay markaas aan dhahay maxaa jir maxaa ku daaray markuu soo dhawaaday oo biyahana uu ka soo bixin oo yiri mool galaa la dili weenay ha yiri markuu ha uu dhahay waxa uu maleynay inay shabaab soo gashay oo shabaab dishay waa soo orday wabigii buura u dhaxay mogtahay iyo xaafada buurkii soo fuulay markii buurka aan soo fuulay waxaan arkaa dad u dhahay nimana kala ordooyaan daaday iyo waxa kala ordooyaan iyo garis kala ordooyaan waa mar maxaa halay waa xabada yeerooyaan waa anay meeshaan maxaa ka halay waa soo orday hadii meesha imaaday oo cimbaha imid waxa uu imaaday mool gala meesha jiifo xabada ku yaaliin oo dhinsan yahay waa gidgidii waa fiiriyay haddaan gidgidii oo fiiriyay iyaarkiisa taleefanka wacay waxaan ogahay anigoo beeraha ka imaado waxa soo socday beledka waxaa arkay cabdullaahi cali inta arageen wadkooda xabadaha u dhaceen kadib iska hormaanay luuqa iska hormaanay wuxuu dhahay cabdullaahi cali maxaa waa dhahay rasaastan dhacaysa markaasuu dhahay soo bax meeshaa hormaanay waxaa naga hormaaday daaday wuxuu dhahay marka adiga ninka walaalkeed dili aan soo dilay markaasuu dhahay soo baxna keen sharciga ku wadaay asigana marka wuxuu dhahay sharciga ku wadaa markuu dhahay uu ka diiday asiga markuu ka diiday waa baxay
ninkaana mooto qaatay ninkaana mooto ka daba qaatay markii anagoo bugaas markaa asiga anagoo meesha iskala wada joogno waxaa imaaday walaalkiisa markuu walaalkiis imaado wuxuu dhahay ninkaan magaalada isla galeynaya wuxuu dhahay cabdullaahi magaalada aniga haddeerta anaa ka soo kacaye waa qabeesaa cabaarka bacda magaal ka soo galaa markuu eradaas ku dhahay daadii waa ka takiyey walaalkiis cabaarka bacda rasaasaa dhacday asigana musqusoo ku jiriyey waqtigaas dacwad kama taagna dhimashada marxuumka sheegashadiisana waxaa la taagan daadir cali cismaan xeelaliya cabdicasiis cusmaan faarax cabdiyare ayaa maxkamadda sare u sheegay in labada eedeysane ay heshiis ku ahaayeen dilka haddase ay go'aansadeen inay iskala reebaan maxkamadda ayuu ka codsaday inaan lagu kala reebin xukunka marka muddo gudoomiye waxaa maxkamadda keenay aaladii falka lagu geystay oo caddeeyeen oo jawaabta ay ku qoran tahay in aaladahan labada aaladood baxbada ay ka baxeen sidoo kale sawirka marxuumkaan keenay baariisii ee dhiidoo meeshaan ka caddeeyey in labada xabadood ay si wada jira ninkaas ugu dhaceenna waan keennay maadaama marka aan keennay markhaatiyaashaas maadaama qiraal uu jiro maadaama laba markhaati aan keenno buuxbuuxdoo fadhiyaan oo warkooda uu yahay war 100% la qaadan karo maadaama aan caddeynay 110 xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed ka wuduuxa shamsi uu yahay in faldambiyeed dhacay faldambiyeedkaasna ay geystay eedeysanayaasha maxkamadda fadhiyo maxkamadda waxaan ka codsanayaa in ay maxkamaddu xukunkeeni hore ee ahaa labada eedeysan ee kala ah dabla nisa daadir cali cismaan iyo dabla bool hirshabeel cabdullaahi cali cismaan ay dileen marxuumkaas rabaanna waa xarfaaniin labadan nin waxay rabaan hal nin in lagu koobaash laakiin labadooda dileen qisaastana waa xayaat nolol noogu jirto haddii labadooda la toogto waxaad joogsanayso in laba qofood ay ku heshiiyaan dil nin muwaadin oo masaakiin inay ku heshiiyaan marka hal xaboo rabaa inuu reebo halka xabana wuxuu rabaa in asiga la toogto kan galna wuxuu leeyahay ha laga reebo maxaa yeelay waa walaalo dambi wada galay diintayna ma dhehayso hala kala reebo ma dhehayso hadduu dambiga caddaado uu dil dhaco qisaastaa lagu fulin marka xarfaanin inay kala haraan rabo waaye nimanka maxkamadda inay saas u fahanto waaye marka waxaan cusanaynaa maadaama dilkaasi aan caddaynay uu yahay mid cad in ay labadoodaba dil toogasho ay ku xukunto maxkamaddu iyadoo uu fasaadin fil ardi laga cararayo maxaa yeelay labadooda dilkan geysteen muwaadin masaakiin in dileen heshiiska bacdiina dileen maxkamadda ma santa qareenada ayaa maxkamadda ka codsaday in xukunka ay ku sinta sheegashada eedeysanaha koowaad iyo dib u eegidda walaalkoodii ku baxay gacanta marxuumka waa kan abukaata isaaq cabdulaahi xasan arrinta daadirna waxay la xiriirtaa kiiskaas hore wuxuuna mudan yahay daadir maadaama uu fal uu sameeyey aan ahayn kii fal waa kii xaqa oo u lahay laakiin mid uu asaga gacantiisa ku fuliyey in mataqaanaa habraaca uu leeyahay ee maxkamadda marsiiso laakiin ma ahan in odacaal ismaan uu daahir hore uga dhintay uu moolgala ka dilay in haddana maanta la yidhaahdo macnaa waxuu ahayd diyana uusan ka qaadan cafisna uusan u lahayn in la yidhahdo daahirna waa weysay diyadiisana waa weysay xataa meeshaan waa laga heshiyo lacagaa lagu kala qaatay uu leeyahay wax lacag kuma qorno taasna waa ilaaba wax lacagoo la kala qaado waa cafiye ilaa ku qoran wax lacaga ama karfan xataa qiimaheeda ha naqatay ama meeshaan ku qoran ma jirto macnaha maxkamaddana waa arki doontaa marka adeer cali ismaan ee daahir cali ismaan 2020 uu ka tegey ee uu dilay allah u naxariistee ninka xuseen xasan moolgale daahiraa la waayey diyadiisaa la waayey cafisaan jirin in hadda la yidhaahdo haddana daahir ninkii u aaray asna hala dilo koo kaloo dheeraadan ha lagu sii daro ee odaha waayo waxuu ahay carruurtiisoo dhanba hal qadiyadoo hal ninkii mudane guddoomiye garsoon waxaa la raadinayo horta kolley cadaalad waayo waxaa la raadinayo cadaalad waayo dukumentiyada iyo maragyada la keenana maxkamadda ayadaa qiimeynta iska leh oo iyo go-aanka ma dambaysta waxaan rajaynayaa in mataqaanaa maxkamadda ay cabdullaahi xorriyaddiisoo taama sii doonto ninka la yidhaahdo waxuu ahay si waafaqsan qodobka 122 sidoo kale ninka la yidhahdo daadirne maxkamadda ay saari doonto tacsiirta uu mudan yahay maxkamaddu waa mahadsanta maadaama uu asaga gacantiisa wax ku fushaday laakiin wax xaq u lahaa ay ahaayeen maxkamadda sare ayaa looga fadhiyaa go'aanka ma dambaysa waxaana soo xiray kiiskan jenaraal liibaan cali yarow guddoomiyaha maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida kiiskaas
oo maanta maxkamadda sare ciidamada qalabka sida ay dhegaysatay oo khuseeyey eedeysanayaasha kale ah Daadir Cali Ismaan iyo Cabdulaahi Cali Ismaan halkaas ayuu ku gabagabaysan yahay wixii go'aanna maxkamadda ayaa dib ku soo sheegi doonta maxkamaddana waa xiran tahay